Racks, I count 6 shots. Bustin' out the bando, a nigga jury real metal like a piano. I went from rad to riches to a feature with tip. I went from smart car to a bitch with some smart lips. And that if an end make my hip limp, I'm going fishing with these little. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abti Asad kusoo dhawaada channelka iyo muuqaalkan. Inshallah, in this video I will be sharing with you 3 tips that can help you build any habit. Those tips are Talooyinkaas maanta waxay ka imaanayaan buugan oo la dhaho Atomic Habits. Waa buuga aad wallahi run ahaantii aad u wanaagsan. Wuxuu kamid yahay one of the first books that I've ever read. Wallahi sanad walba xataa dhowr jeer iska turtaa sanadii. It's a book aku soo noqnoqdo frequently that I really like to read. Inshallah Talooyinka xagaas ka imaanayaan. And this video is not for everybody. Yeah, muuqaalkan is made for people that are trying to build a habit or stop a habit. This video is for you, inshallah kusoo dhawaada. And other than that, I know there was a lot of comments in the previous video. Yo, Mike naga bedel yo codka qashmo yo codka lama si fiican loo maqlo. Inshallah yo waa dalbay Mike cusub waa dalbay oo soo socda. But in this video, idul qaata please. Be patient with me. But let's get into it. Tip number 1. It's not self-control. It's your environment. Wili Allah ma aragto qof ay u fadhido ba. Qof oo nolosha fahmay, salaadiisa kama tagto, gymkiisa kama tago, like shaqo kama soo daahayo, iskoolkiisana homeworkediisa wax walba sameysana. Qofkaas oo kale dadka badankooda markay arkaan waxay dhihi qofkaas self-control khatar u leeyahay. Ya qofka waa qof fiican oo self-control leh. Laakiin badanka qofkaas iyo qofka sidiisoo kale u nooleen ma taqaana. The only difference they have is the environment they in. If your environment is working against you, wallahi, it doesn't matter how bad you want to change. If you want to go this way and your environment is making sure that you this way, and you will not make any change. يعني كدتك بدن كودا دي بلولة أما السيجار كي واحد سوكر عبا هذا أوفير ستة سيجار كحفظة لقى عبا رارك لقى عبا لقى أبي عبا ما مدى عبسها لقى عبا ساحبي وقت سيجار كي عبيان حافظوا الدقين هاي تكامل بسيجار كاسو هيا. For a person like that, the habit of smoking is gonna be inevitable, like something that bound to happen. Let's say the habit of praying, yeah, salada. إن salada كأتكاتي عربتها salada هذا really قاعد نقول أفين. It would really help if your environment is helping you not miss a prayer. هذا مساجد أقدر أنت وآذانك مقليسيد. هذا تلفونك أب هو جرد أب كانوا آدم صلاتك حسوسينا. هذا سجادة دور سجادة قول كايس كده حيالان. مركزو كلو أدك تاني صلاتك ونافته. Yeah, because you have constant. لا بقيت في ذلك إني قرحت بحيرة على وعارسها. When you have constant reminders in your environment of the habit that you're trying to start, it will be really easy for you to start that habit. Your environment really needs to work with you. dadka badankooda environment qashina laga yaabaa inay ku jiraan balaakiin waxa ku dhiyaa I want to change balaakiin environment kaaga needs to change with you. So that's tip number 1. It's not self-control, yeah, it's the environment that you're in. Tip number 2, identity waxay ka dhigan tahay shakhsiyan qofka like the way you see yourself, the picture that you have of yourself. ayaa dhaha identity ama self identity. maanta haddaa habit rabtid inaad bilowdid ama caado haddaa rabtid oo noloshaada inaad kusoo dartid haddaa rabtid, it's really important for you to align that identity with a habit. hadda fiiri goalku ma aha inaad gymka bas aadid. You have to mentally become a fit person. The goal is not to read a book, is to become a reader. ma aha marathona orda ma aha. hadda fiiri goalkaagu inuu noqdaa ma aha marathona orda ama ma aha goalkaagu inuu noqdo gymkan skeeni inaad hadda qof oo gymka aada inaad maskaxiyan isku bedeshid waa yeah. Maskaxiyan, you have to change yourself mentally first, then you're gonna change yourself physically in the external world. But like first maskaxiyan is bedesho that is the really hard part. And the reason that is effective mataqana is because at that point you're not even trying to do an action anymore. Talaaba ina qaadid iskuma khasbi doontid. Yeah, because identity ga bedeshay hadda fiiri you're literally living to the way you see yourself. So hadday jirto caado ama habit aad rabtid inaad noloshaada kusoo dartid ama noloshaada ka saartid, inaad identity-ga bedeshid is like one of the most crucial things aad samayn kartid. Identity-ga haddana badanka markaa qaadatid you have to give proof ina identity-gaas aad tahay. So iminka haddaan dhaho yo nin oo buug akhriska jecelaan ahay, ina action sameeyaa waayo to prove that point. mar walba caajis qabtay ina buug soo qaadi karaa mar walba oo aan meel aaday ina buugayga iska dawato meel hadaa iska jilgareen cunto hadaa dilay ina buugayga iska akhristo like inaan proof isiyaa waa in identity-gaas aan qaadanayo ama identity-gaas daramtaan embody inay run tahay yeah. And hadaa imika caada darabtay inaad noloshaada ka saartid
oo let's say balwa leedahay balwan wax walba noqon kartaa laga yaabo telefonka badsataa waxba cabtaa adi ama gabdho badan la hadashaa ama adi de balonigi waxa adi wax walba balon noqon karto anything that you do too much balwa noqon kartaa laga yaabo habit dan inaad noloshaada ka saarto ma baahnid laakiin habit u baahan tahay inaad noloshaada ku soo dartid laga yaabo gym ka rabta inaad laga yaabo inaad adi diinta ku sii focus gareysaa rabtaa oo xadiisyo iyo adi kitaabo badan riyaadu saalixiin kuwaas inaad xifdidid kor iyo hoos adi habit rabtaa inaad bilowdid before intaad ku soo darin identity-gaaga iska dhis identity-ga isku arag identity the habit-ka sameynaysid identity-geeda isku toosi qaado liq is-aaminsi adi ahaan is-aaminsi hadda maaha is-aaminsi marka ku leeyahay dad kale oo la aado maanta dhan afka taago saan aan haysaasa cidnaha u sheegin haddaa ratid balaakiin adi ahaan ina aamintid waaye inaad tahay qofkaad leedahay waan ahay oo proofna is siisid maalin walba tip number 2 taas oo identity tip number 3 make the habit attractive any habit that rabtid noloshaada inaad kusoo dartid you have to make the habit attractive to you any habit markaa sameynaysid bilowga si qashina dareeme like wax aada weliga aada sameynin ama qof aada weliga ahayn ayaa isku dayaysaa inaad noqotid so way adkaana inaad ku raaxaysatid bilowga ani jimka markii ugu horeysay wallahi aadahay jimka dhan scary wallahi jim oo adi dee kuma raaxaysan jirin meelan iska aadayo aan ku raaxaysanaya ma ahan waxaan rabay Soomaa inaad jimka ku xidhnaado jimka markaa waxay noqotay inaan ka dhigo meel aan ku raaxaysan karo saaxiibaha iska soo wadana asxaabta iska soo wadana hadaayo namariyo jimka markaa aadno jimkii aron inta jimka joogna iska sheekaysanana dad kala la hadlana jimka markaa ka soo baxno cunta iska doonana maalmaha qaarkood aad jimka markaa imaano iska labisana jimkii hadhow markaa jimka ka fikiro jimka wuxuu noqonaa meel oo markaan ka fikiraba qalbiga ku degay meel aan ka naxsanahay meel oo shaqo camal uma arko waa ku raaxaysanaya raaxa ay noqoto is attractive to Maaha markaas oo kale it's easier for the habit mataqaana for you to implement a habit maanta kale wax akhriska rabtaa inaad bilowdid marka book akhrisanaysid meel khatar oo raaxa iska soo fariiso ruuxad iska shida ama daaqada furaadeen ruuxad oo lin xaafada ayr cunto soo agdhig snack series soo agdhig ama quraan shada ama cun shada aad dhigaysatid iskala bixi hadhow markaa book wax akhris ka fikirtid raaxadaas dhan xasuusanay ama raaxadaas dhan ku muuqanaysa then adiga waxaas arkay ku orday book akhris ama like cilmiga ku orday habit kana sameynaysid in adiga kula qurux badnaataa oo kula like raaxa la dareentid you have to see the habit as attractive so inta iskhas bilaada dhiilaadiyo self control u baahanaa waa iskhasba hada laga yaabo maanta in iskhasabtid bari iskhasabtid saad iskhasabtid laakiin ma 10 sano dhan iskhasba goal kan aan leedahay it might have to become part of you forever so waxa ku raaxaysanaysa ka dhig wax oo ku baashaalaysa baashaal ha ku noqdo iminka dadka badanka balooniga markay dhiilayaan hada exercising waa balooniga dib dhan ma dareema way baashaal wayanba way ku raaxaysanayaan ku badi laakiin hada la dhaho gymka aad hada exercising kila ama orada hada la dhaho like they don't want to do it why because it's not as attractive it's not as pleasing whatever it's not as fun as this thing so you have to make that habit fun Talooyinka intaas ku joogan and I hope you benefited something from those tips inshallah laga yaabo in aan wax si fiican u explain gareynin ama adina si fiican u fahmi weyday if you have any questions comment down below ama qof kale kaaga jawaabi oo comment-ka kugu jira ama ana inshallah kaaga soo jawaabi and inshallah my gonna naga soo sixi doona next video I hope this video was a little bit better with the mic and imikana gymka u socdaa inshallah way raaci doontiin because I was getting a lot of questions people asking me yo gymka marka joogtid maxaa sameysaa maanta waxaan sameynayaa chest and triceps waa xabadka iyo gacanta dhinaca inta dambe ayaa triceps la dhahaa so chest triceps kaasa sameynaa inshallah come work out with me let's work asxaabi saa ujeediin iminka jimka joognaa inshallah maanta xabadka iyo gacanta dhinaca dambe ka shaqeynaa chest triceps jawi degan wiilko saaxiibka xagga uu qosla fiir kaamirada salaam shacabka la hadal assalaamu calaykum akhiir soo dhawaada assalaamu calaykum akhiir soo dhawaada we're gonna lay nice session in tonight waxaan shaqeyn doonaa shafka iyo biceps iyo triceps aan square darnaa noo kala kicin event inshallah let's get that working man
workout-keena intaasuu noogu joogaa maanta waxaan ka shaqeynay xabadka iyo tricepska wallahi workout oo iskar boobsiisu ahaa balaakiin jirkeena u baahnaa haddaa jimka ka maqnaatid cabaar ma taqaanaa adiga dhan oo waxaas arkay culusaan oo jid ahaana ma aha culusaan oo maskaxiyan ah because haddaa wixii aad la qabsatay haddaad maalin walba aad sameynin ama haddaa cabaar cirk u fiirisid gacantii kuu fadhido kaa qasme adiga waxaas arkay dibsanaya jimkii ama adoo karahsanayaas arkay schedule-kayga wallahi imka maalmahan busy waaye inaan YouTube-ka xoog badan saaraa rabaa inaan TikTok-ka xoog badan saaraa rabaa intaan su'aalad jawaabi karo inaan jawaabaad jeclahay on videoyaal soo dhigo balaakiin badanka ama waa shaqeynayaa ama adide nolol YouTube-ka ama social media ka baxsan noloshaas badan ku mashquulsana insha Allah xoog badan saari doona marraba horta ballan oo fake inaan qaado laga yaabaa inaan xoog badan saaro laga yaabaa inaan xoog badan saarin balaakiin insha Allah videoyaashan kale imika walaal shaqa ka soo baxay ahayd gymka iskana aniga walaalkay aska shaqeynay hadda xafida aada cunta iska dilaa tomorrow shaqo kale leeyahay shaqadaas la isku diyaarin doona balaakiin waxa rabaa la inay ku muujiso tan maskaxdaadu marmarsiya kula imaana marmarsiyada ay kula imaato dhagtan gali dhagta kale ka bixi cuz those excuses might sound right to you but if you said it out loud to someone else they're gonna just seem out of pocket they're gonna seem sad والله وارنتي مسكحدادو ادي كا هرسو جيدا نفتادو كا هرسو جيدا مسكحدادو كا هرسو جيدا هذا واحد تاغنتايو جيم ربا انا ميل ka gaaro balaakiin marka rabtiin jimka u dhaqaaqdo ama kabaaga jimka marka xirin rabtid ama proteinka marka qasir rabtid waxay kula imaanay marmarsiyo oo qashana hadda waxay ku leedahay hadhow ayada ku canaanana waxay ku dheeyo jimka way aadi laadahay jimka marka aadi rabtid waxay ku dheeyo naga daaniyo jim maxaa maanta ku fala isdaji waa daalanta hadda shaqo ka timaad isdaji ku dheeyo waxaas saxba ka maqlin insha Allah hadda waa yaacna ba man hadda xaafadda joognaa inta yaro iska scabula iska samaysta waxaa isku daray hilib yariisa 3 ukumood ama 4 ukumood iyo avocado geeska nagaata heesana maanta dhan waxa macaan marka jimka ka timaadina khasab ma aha balaakiin iska fiican tahay cunto jirkaaga siisid cuntaas si khataraanid soo kale balaakiin videoga intan ku eegyahay intii soo ka gabeynta videoga oo waa duubay outro ma duubin oh my god waa jeedin oo YouTube ka iskala qabsanooya I feel like cabaar ay u qaadanayna si fiican u fahmo this YouTube stuff but that's the video right there this is the outro right here هذا فيديو واحد رجعنا فيديو نحكي فائدين هذا حكي فائدين أصلا هاي قف كلا تقني ده حكي فائدة share it to them هذا سؤال هيسد comment down below ولا أجد جواب either by me or by someone else and yeah man that's the video right there and many more videos to come inshallah no excuses let's work man